السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa Grand Online Academy waan iga Dr. Mustafa Maxamed. Waxaynu qaadan doonaa 10 kamid ah koorsadeenii cusbeyd ee nutrition course. Koorsadan oo hadda isdiiwaangelinteedu ka socoto Grand Online Academy. 10kii maanta qaadan doona ciwaankiisu waxa weeye energy budget ama qaabka uu jirku u maareeyo tamarta iyadoo qalbo ku xidhan baahidiisa iyo waxa uu jirku helayo nafaqo. Xaaladaha markaas saameyn kara waxa kamid ah hadiiba qofku uu sameeyo feasting ama hadduu qofku cunno badan uu qaato. Feastingku waxaa la yiraahdaa when a person eats more than or markuu qofku cunno ka badan baahidiisa inta uu qofku u baahan yahay more than he or she needs. Qofku waxa weeye baahidiisa wax ka badan markuu cuno ayaa la yiraahdaa feasting. Marka jirku muxuu ka yeelaa tamarta saa'idkeena u baahneen. Excess energy will be stored as ina tamarta saa'idka jirka waxa jirku u maareyn karaa dhowr qaab. Hababkan soo socda ayaa kamid ah. habka ugu horeeya waa inuu ka dhigo glycogen. Glycogen waa nooc glucose ah oo la keydiyay si uu jirku hadhow isticmaali karo. Gaar ahaan excess carbohydrate markuu qofku qaato carbohydrates ka macnooyinka sonkoruhu ku badan yihiin oo saa'id ah markuu qofku qaato waxaa laga dhigi karaa oo loo kaydin karaa as glycogen. Glycogen taas maxay naga caawinaysaa cunadii marka jirka ka baxdo inuu waxa weeye jirkii dib u isticmaali karo ilaa inta uu qofku cunno kale ka qaadanayo. marka inta badan beerka lagu kaydiyaa meelaha kale lagu kaydiyo glycogen waxa kamid ah unugyada muruqyada ama muscleska ayaa kamid ah si marka loo baahdo tamar degdeg ah loo heli karo. habka labaad ama qaabka labaad ee markuu qofku cunno badan uu qaato loo maareyn karo waxa kamid ah body fat in wixii loo bedelo nafaqadii baruur in loo bedelo fat laga dhigo. gaar ahaan excess carbohydrate marka uu qofku qaato carbohydrate ama sonkoro saa'id oo jirkiisu intii baahidiisa ahayd ka badan marka jirku wuxuu ka dhigi karaa fat ama baruur buu ka dhigi karaa. Baruurta lafteeda marka inta badan kaydkii tamarta ahaa ama carbohydrateska ahaa la dhameeyo ee uu kamid ahaa glycogen ay kamid ahayd waxa laga yaabaa marka qofku aanu muddo dheer waxba qaadanin in fatka laftiisa ama duxda lafteedii hadhow toole dib looga faa'iideysan karo xaaladaha qofku aanu helin cunada xilligii uu u baahnaa. markan oo kale wuxuu ka sameynayaa fat ama baruur buu jirku ka sameynayaa. qaabka saddexaad waxaa laga yaabaa marmarka qaar in falgallada jirku oo metabolism of the body favors fat metabolism or fat formation in falgallada jirka ka dhacaya ayaga laftoodu door bidaan in la sameeyo fat ama duxdii. taasi waxay badan tahay markuu qofku cunadiisu ay tahay cunno ay ku badan tahay waxa fatka ama duxda ay ku badan tahay. markan uu door bidaya waa when excess energy is derived from dietary fat waa marka tamarta saa'idka qofku uu helay ay ka timi asalkeedii hore dux ama baruur ay ka timi. marka habkani waa hab kamid ah qaababka uu jirku ula tacaalo markuu qofku cunno saa'ida uu isticmaalo. casharadan iyo casharo kale lamid ah waxaynu ku qaadanaynaa koorskeena Human Nutrition Course. aad baad mahadsantihiin. fadlan videogan si share gareeya like na saara. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.